haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa xuutiyiinta dalka yemen ayaa sheegay inay weerar ku qaadeen gantaalo balastig ah iyo weliba kuwa garbaha leh inay la dhaceen sacuudi arabiya. haddaba barnaamijkeenan kii ka horreeyey waataan idiin sheegay sacuudigu inay weeraro ku qaadeen xudayda iyo meelo kale, xuutiguna uu ballan ku qaaday inuu ka arguda doono. waxaana idiin sheegay xuutigu ballantiisu way soo baxdaa saacadaha kasoo wareegato ama waqti koobana kasoo wareegto nimankaa waa fulinayaan. haddaba maxaa dhacay marka duhurkii markay ahayd siirigaa isqabsaday magaalooyin yumbac iyo jazaan iyo meelo ka mid ah sacuudiga oo shirkadda aramco waa shirkad weyn oo markaa iyadu ka shaqaysa soo saaridda shidaalka sacuudiga. nimankii waxay yidhaahdeen waxaynu ku garaacnay sacuudiga gantaalihii israa'iil aynu ku garaaci jirnay, kuwii balastiga kuwii garbaha lahaa. sheeku marka waa xumaatay. nimankii sacuudiga nima waalani faraa la galay. nimankan baa la isku taataabtaa sacuudiga sidiisa kale inuu hawshiisa iska watay ahayd. marka nimankii sacuudiga fuustaa loo taraarixiyay ba maqli jirta. nimankaa fuustaa loo taraarixiyo way galeen. marka xuutiya iyagu hadda meeshii ugu xumeed ay kala barayaan. haddaba aan idin tusoo telefishinka aljaziira ayaa goordhow qoray warbixin uu leeyahay jamaacada ansaarullah xuutiyiinta dalka yemen war ay soo saareen goordhow waxay ku sheegeen inay bartilmaameedsadeen waxa ay ku tilmaameen goobo xasaasiya oo muhiim ah oo ay iska lahayd warshadda ama shirkadda la yidhaahdo aramco ee shidaalka soo saarta sacuudiga. goobaha la weeraray waxay kala ahaayeen jazaan iyo yumbac oo sacuudiga ku yaala. waxay sheegeen 10 ka mid a gantaalaha balastiga iyo kuwa garbaha leh iyo drones inay halkaa ku weerareen oo ay weeraro ku qaadeen. waxaana ay sheegeen inay kaga jawaabayeen weeraradii saakay ay sacuudigu ku soo qaadeen 3 qaybood oo yemen ka tirsan oo xuutiyiintu ay joogeen. afhayeenka militariga kooxda xuutiyiinta General Yahya Sariic ayaa sheegay bayaan rasmi ah in jamaacadu aanay ka labayn doonin ciddii soo weerarta inay u jawaabto, ciddii xayiraad saarta inay ugu beddesho xayiraad kale. waxaana uu sheegay in xaalku uu sii socon doono inta sacuudigu isaguna uu ku wado halkaa gardarrada sida ay yidhaahdeen. marka waxay dhihi jireen nin guri muraayada ku jiro dhagax ma tuuro, sababto haddii lagu soo tuuro muraayadii jabayso. xuuti haddaa weerarta maxaa ka cunayaad? waa jabhad buuraha hoostooda ku jirta, meelahaas alaabtooda ku haysata, wax gooni ah ka burburinaysid miyaa jira? laakiin iyagu waxay soo tuuraan meel muhiimay ku dhufanayeen. marka sheekadu aaday u kacsan tahay. xaalku marka halkaasuu maraya. kollay wax waroo dhanka sacuudiga ilaa hadda khasaaraha ay kaga hadlayaan oo ka soo baxay ma jiro, laakiin kollay way soo hadli doonaan sidaa xaalku yahay haddeer. waxaynu u gudbaynaa arrinta iiraan iyo maraykan. waxaase noo soo socota sheeko cajiib ah. duqa magaalada london oo raacay waddadii duqa magaalada new york inay xiraanay rabaan netanyahu hadduu tago meelahaas. 2 nin oo muslina ayaa netanyahu u heshiisay oo u dhaaranaysa. yaa 2 magaalo oo waaweynayna ugu kala dhaaranayaan london iyo new york. wallahi sheeka haysata nimankii koofiyad yarta ahaa dhibaata haysato. waxay adduunka ku kaabeeyaan hadda meel kasta waa lagu cayrsanayaa. sheeko la yaab laa noo soo socota, laakiin marka hore waxaan ka hormarinaynaa nimankii iiraaniyiinta ahaa ayaa war la yaab la soo saaray galabta. haddaba markaan idin tuso mas-uul iiraani ah ayaa sheegay in garaacista iyo weerarada ay qaadayaan ay sii socon doonaan inta si dhammaystiran uu isu dhiibayo cadowga. yidhaahdeen gacmaha intuu ka taagayo duqaymaha waa wadaynaa. haddaba xogayaha golaha sare ee amniga qaranka iiraan waxa uu sheegay weerarada isxigxiga ee meeshii loogu talagalay ay ku beegsanayso iiraan inay sii socon doonaan inta ay iska dhiibayaan cadowgu si dhammaystiran. maba ka joojinaynu dha maraykanka goobihiisa iyo saldhigyadiisa jugta ku haynaynaa, maanta dhan waa garaacaynaa u leeyahy.
jugtaasaa ka gelinaynaa ma fahamta marka wuxuu leeyahay ilaa uu gacmaha taago isdhiibid kaamil ah uu isdhiibo istislaam kaamil ah cadowga uu isdhiibo waa ku wadaynaa uu yidhi dhagahaan ka garaacaynaa waayahay sheekadaasu halkaasay marka maraysaa nimanka iiraaniyiinta ah ayagaa celcelisa hadda dhanka kale waxay leeyihiin goob waxay leeyihiin la yidhaahdo jabalu fa'sa la yidhahdaa waa goobta nuclearka ugu xaraysan yahay nimanka iiraaniyiinta goobtaas haddii lasoo weeraro waxay yidhahdeen meelihii aynu ku hurgufi lahayn ku garaaci lahayn madaafiicdeenna ee israa'iil gudaheeda waa noo calaamadaysayin carwaa kaasi jabalu fa'sa lasoo adeedheen jabalu fa's waa xininyahana waay macnaha meeshaas mana laga taabtay taaganta jabalu fa's haddii lasoo aado bangigee goobihii aan duqayn lahayn ee israa'iil waa noo diyaarsayin gacantaa ku haysanaa waa ku bilaabaynaa bis meel hadda kadib la raadinayo dhan maaha haddaba marka aan idintuso wararkii ugu waaweynaa sheekada laga qoray haddaba goobo fara badan oo markaa iiraan waxay sheegtay oo cusub oo gudaha israa'iila inay hayso haddii la isku dayo jabalu fa's in markaa xaaladda waxay ka noqon doontaa mid markaasi shidanta oo la isku hor yimaado haddaba warbixin dhinaca amniga iiraan ay soo saartay oo telefishinka aljazeera uu helay waxaa lagu sheegay in iiraan ay durbaba diyaarsatay goobo cusub oo gudaha israa'iil ah kuwaasoo ay u qorshaysay inay garaaci doonto haddii israa'iil ay kasoo qayb gasho dagaalka ka dhanka ah iiraan inay halkaa iyana ay burburin doonto sida lagu hanjabay waayahay sheekada marka iyaduna maxaa laga fahmi karaa iiraan marka waxaa laga fahmi karaa goobaheena nuclearka ah waa khad al axmar waaye waa layn cas waaye inta aad badda geeskeeda iyo meel raadaar yaalay aadaysaan dhib male annaguna meelahaasaan garaacaynaa gawda ku haynaynaa laakiin haddii baashu xaninya kataaba tagto oo meesha laysu yimaadaa meesha banga ahdaafa haysanaa dheh ahdaaftii meeli badan oo cusub oo aan nagta ka saarayna haysanaa marka sheekadaas iyaduna halkaasay maraysaa fariimo ayaa warbaahinta laysu marinayaa sheeko marka culusaa jirtaa waa barnaamijka qaybta ugu dambeysa waxaa waraysi laga qaaday ninka la yidhaha sadiiq qaan waa maayarka ama duqa magaalada london waaye waa nin muslina waa nin asalkiisu bakistan yahay ninkaasu marka waxaa waraystay telefishin ingiriiska oo la yidhaahdo channel 4 ninkaa marka wuxuu ka hadlay arrinta netanyahu hadduu yimaado london maamadani oo nin muslina oo new york isaguna maayar ka ah hadduu halkaa yimaado maxkamadaan la aadaynaa sootuu yidhi waa xaraynaa adigana ka waran alyidhi anigana wuxuu yidhi waxaan ka shaqayn doonaa ninkanu inuu xabsi u dhaadhaco la geliyo hadduu landa yimaado maxkamadda dembiyada xukunadii ay ku soo ridayna in lagu fuliyo intaasaan hadduu inta yimaado anigana aan ka shaqaynayaa carwaa kaas lukaa soo dhigo ha yimaado in loo hanjabo netanyahu waxay tahay wax la yaab leh haddana yaa u hanjabaya laba nin oo muslimiin ah haddana wadamadooda iyagoo jooga may u hanjabayaan maya wadamo reer galbeed laba magaalo oo muhiima london iyo new york taasaa waxay qalbi jab ku noqotay nimankii koofiyad yarta ah kaalay adiga marka nimankii waa weerareen haddeera londona nin muslin ahaa haddana asalkiisu bakistani yahaa new yorka nin muslin ahaa asalkiisa hindiya والله adinkeedii taalaaliin haddaba warbixin ayaa warbaahinta oo dhan ay ka qoraysaa baatay sheekada ku saabsan arrintan duqa magaalada london waraysiga cajiibka ah uu bixiyey ayaa warbaahinta oo dhan haysta haddaba qadka telefoonka waxaa toos ugu jira magaalada london falanqeeye dhinaca siyaasadda iyo caalamka
ninka la yidhaahdo maxamed nuur qalimow oo aada ula socday waraysigaas oona dhagaystay falcelinta iyo waxa ka dhashayna aada ula socda. qalimow soo dhawow mar kale inaad nagala qayb gasho barnaamijyadeena waanu ku faraxsannahay oo kugu soo dhaweynaynaa. marka labaad muxuu ka sheegay Sadiq Khan Netanyahu? أنا أرسلنا قلنا مردو يا واحد دقة مقالة لندن أيا وحكاة لي نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل دي ويمادو لندن ونقول دونا ننو أونلاين دونا إن لحرق والله قاعد شرعي عالم كICJ ده محكمة ده الدنبية ده عالم كا تانا واحد كدم بيسي كدم مركي ويك لصورنا في إسنا ودقة مقالة ده نيويورك نمداني وسنا شيء إن نيويورك تو يمادو وواحد دونا قف يعني أما الدولة دي سووا شيء دون إن الحرق لكن كل الدولة إن شاء واحد تاي دولة إنجليز كواحد كمية تاي الدولة دي صحيحة شيز كاس كريمنال كورت دون كإنترناشنال كا وواحد تاي وماندتري إنه هدي ويماد أي قبطان كنا ورجال محكمة داسة هلك مراكن كوسنا هين ذاتك صحيح الدولة دي صحيحة كمية مع مراكن كا وكوبت بالك راه هالكاز لكن لندن أما UK كما بتبادك لسبب إنجليز كوح واجب كنا قونيسا إنه شرعية عالم كا وحكا صحيحي وفولي تاسو هدي قف دنبية دقال محكمة داسي أي وهايستو إنه نقضو تدكي أسو قبان لها أما الدولة دي لوغو تلقالي إنه هدي وحكا صحيحين ونقضو نين لا شقية محكمة داسي أما الدولة داسي لا شقية محكمة دا عالمي أين كان دقف كاسي هدي حق وصور ديغو wadankooda marka dawladda Ingiriiska waajib waxa ku noqon doona inay qabato hadii wadankan yimaado inkastoo hadda wax muuqda aanan ahayn inuu soo socdo laakiin hadiiba uu yimaado waa wadankan Ingiriiska kulleeytaba waa wadan ay aad isku xiran yihiin Israa'iil ra'iisul wasaaraha cusubna suu ka yeeli doon lama yaqaano laakiin ninka hore isku mayna fiicnayn kadib dagaalkii Gaza waxa kale jiro in Sadiq Khan horena uu uga hadlay haddana uu ka hadlay mar walbana uu yiraahdo xasuuq bani aadan ayaa laga geystay Gaza sababahaas ayaana qasab ka dhigaysa in ninka dambiga galay ee lagu toonsan yahay Netanyahu in maxkamadda caalamiga la horgeeyo meel alla meeshu yimaadana haddii ay ka mid tahay dowladihii saxay ay noqdaan kuwa maxkamadda la shaqeeya soo qabta ku wareejiya maxkamadda caalamiga si loo maxkamadeeyo waayahay qalimow su-aasha kale maxaa marka ka dhalan kara arrinkan soo ifbaxay hadda hanjabaadan Sadiq Khan tii kale maaragtay waan ogeyn Mamadani isaguna New York mayorkii maxaa marka arrimahan ka dhalan kara maxay uga dhigan tahay Israa'iil haddii la yiraahdo imaanshihiisa maxaa ka dhalan kara dabcan waxa ka dhalan kara horta dadkan Ingiriiska nooc walba la cadaan madow Asian Muslim Christian cid walba waxay aad uga xumaadeen oo banaanbaxyo ilaa hadda xitaa iska socdo sabti walba la qabto oo loogu soo horjeedo xasuuqa laga geystay Gaza Falastiin umada loo geystay taasoo bini aadanka aad uga wada damqadeen noocu doona diintu doona haystay iyo midabku doona ba lahaadeen marka waxay keenaysaa in banaanbaxyo waaweyn oo rabshado wata oo looga soo horjeedo dhibaatooyin waaweyn oo ku soo kordhiyo imaanshihiisa ay ku soo kordhiso imaanshihiisa London taasoo xaq u siinaysa duqa magaalada haddii wax ay jiraan ee magaalada qasi kara ee dabada iyo wax u dhimi kara inuu xitaa laftigiisa uu dhihi karo qofkaasi hadduu London yimaado dhibaato ayaa ka imaanayso shacbiyadeed uu codkiisa ku beerin kara dawladda inuu ka codsado in magaalada uu duqa magaalada ka yahay aanan arrinkaas ama qofkaas unan imaan marka fikradihiisa dabcan waa wax la tixgelinaya waa duqa magaalada London marka Sadiq Khan waxaan filaa in fikirkaasna uu dawladda la tegi doono waxyaaba ka dhalan doona isagoo ku andacoonaya inay tahay nabad la'aan ka dhalata banaanbaxyo aan joogsi lahayn maybe inay dhibaatooyin kala dhacaan booliiska iyo shacabku ismaaragtay iska horyimaadaan ilaa waxa soo bixi doona waa malaayiin waayo isagoo aan imaan baaba dadka soo baxay aad u bannaan jireen laakiin hadduuba life u yimaado asagu magaalada cagta soo dhigo waxaan filaa in magaalada dhan ay soo bixi doontaba waayo qofna kuma faraxsana ummadaasi iyo caruurtaasi iyo dadka waaweelka ee la leynaya ee madaafiicda lala dhacay
marka qofkii mas-uulka ka ahaa Netanyahu hadduu cag soo dhigo ma filayo in cidna ay ku faraxsanaan doonto oo banaanbaxaas wuxuu noqon doonaa mid dhammaan laga wada qayb qaato rabshado badan ay ka dhashaa marka rabshadahaas si loo joojiyo wuu codsan karaa dowladda ka codsan karaa in qofkaas unan imaan taa ay keeni kartaa iyo shacabka iyo rabshado badan ay keeni kartaa taasa ka dhalan karta haddii uu yimaado waayahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa falanqeeye dhinaca siyaasadda caalamka maxamed nuur qalimow oo telefoonka igu warramayay isagoo jooga magaalada london oo aanu ka wareysanaynay waraysiga sadiiq qaan uu kaga hadlay Netanyahu arrimihiis barnaamijkayga warbixintaas ayaa ugu dambeysay asxaabay laagareeya oo sheergareeya barnaamijka fakar iyo aragti qodobka aad is leedahay waad ka dhiiban kartaa iyana noo soo qor inta aad barnaamijyo kale ku kulmayno meel kastoo aad naga daawanaysaan nabadgelyo